halkani waa deegaanka Waridaad ee ka tirsan gobolka Saraar waana dooxada Xaaxi waxaana waqti xaadirkani maraya biyo tira badan biyahaasi oo xanibay gaadiidka u kala gooshi jiray gobolada Togdheer Saraar iyo Zanaag iyadoo halkaasi ay ku xayiran yihiin gaadiid aad u tira badan maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba ayaa gaaray halkaasi isla markaasina dadkaasi u fidiyay gurmad waxayna maamulka gobolka Saraar ay u keeneen cagaf si looga saaro gaadiidkani waxaana telefishinka caalamiga Hon Cable TV oo halkaasi booqday la hadlay bulshada iyadoo halkaasi ku xayiran markaysan waxa ka dhacaysa hirba ka dhacaya saaka anigu qaadkii baan siday halka markaas sii socday gaarigu way ka qaaday gaariguna waa kaalka ka sii laablaada gaariga ugu dambeeyay isku soo deeyna horta yaala marka waxaan u sheegaynaa dawladda iyo waxgaradka iyo maamulkaba dadkina waa arkaan iyo guriyii annaga halkaas naga tuuro waa arkaan wax laga qabto darawaliinta wadatay baabuurtan muddo badan ayay baabuurtu meesha ku cadileed oo toddobaada intaaba waanu qaylinayna waxa laalay wax gurmado aan dawladda ka haynay may jirin maanta waxa noo yimi gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar iyo maayirka degmada Caynaba alxamdulillah iyagana waan soo dhaweynayna ugu dambeyn halkaasi waxa baaq diray maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf barasaab ku xigeenka gobolka Saraar iyo taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Saraar iyagoo mas'uuliyiintan si isku mid ah u sheegay khasaaraha ka dhashay biyahani Sanaag iyo gobolka Togdheer waa wadadii la sameeyay xukuumaddu samaysay intii jeeg ahayd baan joognaa oo barkada cali xirsiyageedii daadadkii badnaa roobkii faraha badnaa ka daay ayaa waxay xidheen oo gooyeen jidkii dhexe ee jeeg ahaa taasoo baabuurtu weegan bay ku cadiban tahay oo halkan ku jirto baabuurta in badanna ay dhacday oo marka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka waxaan u sheegaynaa inay gurmad degdeg ah keento halkan si looga shaqeeyo wadadii isku xidhkii gobolada ayaa go'ay jooga maato caruur aad iyo aad u yar hooyooyin waxa go'ay oo Ilaahay raxmaadkiisu gooyay wadada u dhaxaysa wadadii bari ee la ismari jiray gobolada bariga iyo gobolada galbeedka waxay ahayd marka hore gaadiidku waa kala bedelayay gaariga istiwisidaa ka soo qaado ceergaabo dadka hareer sagaal dadku ugu tagay ku sidana halkan ay ugu yimaanayeen saas loo kala wareegay gawaadhidu raashinku saas oo kale u meedo ka ceergaabo ka yimaaday kala halkaas loo kala wareejinay imika intii waa ka soo dartay waxaan leenahay si degdeg ah waa in wasaaradda gidadka iyo wadooyinku ay u timaado halkan anagoo fulinayna amarka kaliya ciidanka booliska Jamaal Cabdullaahi Suleymaan baanu fulinayna maamulkiisa aan ka qayb qaadanayna gurmadka iyo amarka iyo qatarta halka ka socota dadka la waxaan leenahay Ilaahay ka yaaba oo ha isku soo miidaaminina waxaan aad aragtaan وعلي آذن درد علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba